xubnaha ururka Alfatras ayaa qaar ka mid ah iskuulada waxbarashada ee magaalada Muqdisho gaarsiiyay agabka looga hortagayo caabuqa COVID-19. qaar ka mid ah ardaydii la siiyay agabka looga hortagayo caabuqa COVID-19 iyo mas'uuliyiinta kale ayaa la hadlay TV-ga Universal waxayna sheegeen inay u mahadcelinayaan wacyigelintan loo sameeyay dadkii ka soo shaqeeyay. Groupka Alfatras anagoo ah maamulka iskuulka Daynile waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan noola garab taagantihiin wacyigelinta caabuqa coronavirus. wacyigelintana anagana qayb weyn kaga qaadan doonaa. waa u jeedin ardayda garbaheena taagan yihiin ayagana mar walba waxay u taagan yihiin in qof walba naftiisa u badbaadsado qofka kale oo dariska la ama galaaska la dhigto ama xaafadda la joogan in nafsadana uu ka badbaadiyo. meel walba ma xayaala tubadii gacmaha la qasabadii gacmaha lagu dhaqanayo 20 ilbiriqsi gacmaha dhaqa bareega markaad u soo baxdo markaad salaada u soo baxdo markaad gurigaaga tagto mar walba gacmaha la iska dhaqo. face mask-kuna saacad walba xiraado. face mask la idin keenay waa kii one time ka aan ahayn oo la dhaqanayo in aad ku dadaashiin maadaama arday soo kacaysa aad tihiin ayagana dhalinyarada isbiirsata khayr Allah siiyo idinkan inaad la qaadataan aan idinka rabaa oo halkan waxa aad ka barataan aad guryihiina kula noqotiin haddaad tihiin dhalinyaro soo baxayso waxa fahanteen Soomaa ay waa mahadsantiin. wakiilka ururka Alfatras ee dalka Faransiiska Ibrahim Caanama oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho ayaa hogaaminaya fulinta barnaamijkan wacyigelinta bulshada isagoo halkaasi ka hadlayana waxa hadaladiisa ka mid ahaa. waxaan marka koowaad u mahadcelinayaa maamulka degmada Daynile xafiiskiisa samafalka oo maanta halkan nagu soo dhaweeyay walaalihiin Alfatras oo adduunka oo dhan ku kala faafsan ayaa idin soo gartay intaan insha Allah ka badanna waa ka mudantiin waana idin soo gaari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. marka waxaan idin ka rajaynayaa inaad noo soo duceysaan annagana aan idin soo duceyno inuu Ilaahay annagoo dhan axwaasheena hagaajiyo insha Allah tacaala. annagoo ah maamulka degmada Daynile gaar ahaan qaybta barakacayaasha ee samafalka waxaanu la wareegnay oo kala wareegnay alaabtii loogu talagalay caabuqa corona oo dhibaatada ku haya caalamka hay'adda la yiraahdo Alfatras waana ku mahadsan yihiin sida ay noo soo gaarsiiyeen walaalaha oo noo soo barakeeyay oo noo keenay geedkan afka gashanayno iyo gacmaha aan waxay daawada la socoto narsii doono waad ku mahadsantiin 100% dibadda iyo caalinka dalka meesha joogtiin Afrika iyo Asia meesha aan joogtiin 100% waad ku mahadsantiin. aad iyo aad ugu dhib qabnay taraad dhow waxaan qabsatay meelahan qaraha nagu dhacay qarahaas qofa qaadnay markii isbitaal Madiina geynay waxaan ka gadanay inaan waynay isbitaalkan galowntay nalal diiday aad iyo aad maanta haddii aan haysana aniga qaadana waxa Ilaahay mana tusana ugu dhaa inaan usturunan haysana walaalahan noo keenan muslimiinta ee walaalahan ah waa mahadsan yihiin. dhanka kale gudoomiyaha ururka Alfatras Daahir Cali Kulmiye ayaa sheegay in ururka Alfatras uu kaalin weyn ka qaadanayo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed. ururka Alfatras waa urur u shaqeeya dadka Soomaaliyeed ee danyarta ah waxaan wacyigelin ballaaran ka wadnaa goobaha waxbarashada iyo kaamamka barakacayaasha waana meelaha cudurka si dhaqso ah ugu faafo marka waxaan mar walba diyaar u nahay wacyigelinta bulshada. ururka Alfatras ayaa barnaamijyo samafal ah iyo wacyigelin waxay ka sameeyaan gudaha dalka iyadoo bil walba ururkaasi uu howlgal samafal ah u sameeyo bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka. Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho.